بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان مسلمين تميل كستو دوندا دعالديد كجوكتين فرحة إيجو عيدة أنغانا فرحة أيان كو عيدني وأنا نبت قبنا الحمد لله إذا كانوا حرجينا إنا نبت قبتين أو نبت قبكو عيدين ما شاء الله تبارك الله انت حنوصلنا الله عافية لمتن إله ونحرسته ما أنت وحان إدين وذا dumarka ka cawanayo PCOS tayrood hormoonka ragga ee ku badan dumarka ama burobiyood haddii ay ku daashatay intaasba fiidiyowgan daawo dhammayso Leylo official youtube-ka tag kasoo daawo dhankaas haddii dhanka tiktok igala socodidna loofka ii saar falowgan ii saar youtube-ka Leylo officialna wuxuu saarayaa brofiilka kore waana ku mahadsantihiin soo dhawaada walaalahayga qaaliga waxyaabo badan ee PCOS-ka aad kaga hortagi kartid ama kaa caawinayo dhakhtarna kaga maarmi kartid ayaan kula wadaagayaa insha allah janalka waa janal dabiib lambar 1 waxaad sameynaysaa inaad sidaan samaysid 15 daqiiqo ku hay kadib lambar 2 sidaan sameey lambar 3 shantan shay sameey jimicsiga nuucan wuxuu kaa caawinayaa bambeelmadan haddii aad cabtid dhammaan qudradan oo kale markaa qudradan oo kale aad isticmaashid waxyaabahan oo dhan wuxuu kaa caawinayaa inay ma aragta PCOS-ka hoos u dhaco ood ka caafimaatid hadduu miisaankaaga sareeyo socodka badi socodka haddii aad badis wuxuu kaa caawinayaa PCOS-ka iyo thyroidka inay meesha ka takhalusmaan cuntada ma aragtay aad cuntidna inaad wax ka bedesho isku day cuntadaada haddii ay baasto iyo bariis ama waxyaabo sokor ku badan yihiin aad isticmaashid hadda ka bacdi jooji biyo fara badanna cab inaad socotid maalintii saacad sii socotid saacad soo socotid jimicsatid jimicsiga nuucaanna wuxuu kaa caawinaya inuu PCOS-ka uu meesha dhan ka baxo ama tayroodka ee meesha ka baxo qajaarkan ama xawaashida meeshan yaal ama qorofalkaas raspberrygan dhammaan wuxuu kaa caawinayaa inuu kaa baabi'iyo tayroodka ama burobiyoodka hormooniska qalsan oo caadada qalqalka ka dhigo hormooniskaas PCOS-ka waxaad ku dareemi kartaa timahaaga ayaa aad u daadanayo caloosha ayaa ku bararayso caado khalkhal ayaa kugu dhacaya ama dhiig furan ama caro fara badan ayaa maanta dhan ku saaran dabeecadaada xumaanayso ilmaha ayaa kaasoo dilmaya mar walbo amaba uur maba qaadaysid oo ugxaantaada daciif ayuu noqonayaa hadduu PCOS ama tayrood uu ku haayo ama hormooniska ragga ee ku badan ee dumarka waxyaabahaasoo dhan wuxuu keenaa kilkilaha ama wejigoo kale finan fara badan ayaa kaa soo baxayo wejigaaga dhan madmadow ayuu yeelanayaa kilkilahaaga madow kaliya waaye jirkaaga meelo badan oo qarsoon oo waxaa arkaysaa sidii dhuxushi u madow waxaa sababa waa PCOS-ka mar walba haddii aad korkaaga uu gubanayo ama hur fara badan uu kaa baxayo ama diiqoonayso murugo badan haddii aad dareemaysid waxyaabahaasoo dhan PCOS-kan ayaa sabab u ah tayroodka PCOS-kan maxaan sameeyaa waxaad sameynaysaa horta waa inaad jimicsi samaysaa mar walba aad jirkaaga ma aragtay miisaankaaga ama jirkaaga aad ka shaqaysaa waa inaad qaabkan aad samaysay muddo 15 daqiiqo ayaa qaabkan bush upkan ayaad sameynaysaa markaa intaan aad 15 daqiiqo aad samaysid qaabab badan ayaa jiro qaabka oo waxaad sameynaysaa intaad fariisatid aad labadaada lugood soo laabaysaa qaab waxaa jiro inaad istaagtid aad 15 jeer ayaad fariisanaysaa aad kacaysaa qaab waxaa jira xabadka intaa u seexato aad labada gacmood dhulka dhigatid aa xabadka kor u taagtay aad dhabarka dhulka intaad ku dhajisid ayaad 15 daqiiqo haynaysaa digirahan kala nuuca ah shiya siidkoo kale xawaashiyadan kala nuuca ah sida looskoo kale bakureygaas strawberryga raspberrygaas dhammaan wuxuu kaa caawinaya inuu maaragtay PCOS-ka meesha uu ka takhaluso qaabkan 15 daqiiqa ayaad sameynaysaa lug ayaad taagaysaa lugna waa soo laabaysaa jilibkaaga ayaad laabaysaa 15 daqiiqo inaad mar walba jirkaaga ka shaqayso isku day PCOS-kan wuxuu kaloo sababaa inuu buro kugu sii badiyo fiixda galo dhanka tubooyinka oo dhibaato fara badan xanuun fara badan dhabarkoo kale
sagxadda miskahoo kale ayaa ku xanuunayo, saxarada ama calool fadhi ayuu leeyahay PCOS-ka. Wuxuu kaloo leeyahay inaad mar walba aad adiga dhan murugaysan tahay, aadan dabeecad lahayn. Dadka markaa dhex joogta lagaa dareemayo inaa adiga dhan maanta dhan niyadaada aana joogin. Markaasoo kale maxaad samaynaysaa? Waa inaad jimicsiga badisaa, waa inaad biyo badan cabtaa, waa inaad cuntooyinka isku dheelitiran aad cuntaa. Bambeelmadan PCOS-ka aad iyo aad ayuu u caawiyaa, waayo mar walba haddaad maalintii koob ka cabto liinta bambeelmada aad ayuu kuu caawinayaa. Dhibaato fara badan oo dhan oo jirkaaga ku jiro wuu kaa dhammaanayaa. Haddii maaragta haaraha uu ku daashaday, madmadowga, xusuladoo kale, kilkilahoo kale, wejiga nabraha soo naqanayo kale, waa tayroodka ama PCOS-ka ayaa sababa. Marka inaad intaas kaga maarmatid oo dhakhtarna aad ka maarmatid, gacantaada ayaad ku samaysan kartaa, adigana dhakhtar isku naqan karo. Inaad dadaashiin isku daya gabdhaha qaaliga ama wiilasha qaaliga dhammaantiin waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada, khudradana badsada, cuntooyinkana ma aragtay aad cunaysiina jadwalka aad hadda ku jirtid badal. Haddii aad guri fadhigaaga uu badan yahay, waxaad isku daydaa inaad socod ka badisid, saacadna aad sii socotid, saacadna aad soo socotid. yacni waxyaabahaasoo dhan waxaa kaaga ba'ayo diiqada ku saaran ama dhibaatada murugada ku saaran, walwalka ku saaran, dhiig furanka ama caada khalkhalka ama maaragta caloosha ku bararaysa mar walbo, saxaro fadhiga, dhammaan wuu kaa baabi'i doonaa insha Allah. Fideogaana sheer gareeya, asxaabtiinana u sheer gareeya. Aadaan u mahadsantiin meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtiin. Waa ku mahadsantiin sida quruxda badan la aad iila socoteen mar walbo. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan. Haddii maaragtay miisaankaaga uu aad u badan yahay, waxaad isku daydaa inaad biyo fara badan aad cabtid sida miisaankaaga hoos ugu dhaco, caloosha bararan kaaga degto, lugaha ku bararaan, timaha kaaga daadanayo sidii ay maaragtay ay kugu qurxanaadaan, ay timahaaga timo adag ay go'ayna ay noqdaan. Waa inaad jirkaaga ka bedeshaa waxyaabaha aad cunaysid, waayo haddii aad waxyaabaha sokorta ku badan yahay aad isticmaashid, waxyaabaha caanaha sida caanaha fadhiyo kale oo sokorta ku badan tahay, waxa aad cunaysid waa inay sokorta laaw ay ka yihiin, aad sokor ayna ku jirin. Jimicsiga qaabkan wuxuu kaa caawinayaa inuu ma aragtay ugxaantaada koraan, calooshan bararan kaa degto. Waa inaa 15 daqiiqo sidaan aad samaysid. Lugna waad dhigaysaa, lugna waa soo laabaysaa. 15 daqiiqo markaas saan ku haysid. Kadib waxaad samaynaysaa waa fariisanaysaa haddana labadaada lugood isku keenaysaa, xabadkaad dhab ku siinaysaa, cabaarad ku haynaysaa 15 daqiiqo. Marka waxyaabaha kaa caawin karo PCOS-ka waxaa ka mid ah waa inaa mar walba jirkaaga dhaqaajisaa, lafahaaga meel kasta oo lafaha ku xanuunayo dhaqaaq ku samee guriga dhexdiisa, adkaarta badso, wardiga Ilaahay badi. Mar walbana waxyaabaha qudratu u badan yahay sida kalluunka oo kale, digirahoo kale, baasti iyo bariisna aad meeshaas ku istoob garaysaa. Waxyaabaha ma aragtay looska oo kale, xawaashiyada kala nuuc oo kale. Xawaashiyadan aad iyo aad ayuu ku anfacayaa oo kala nuuca, qorofalka oo kale, looska oo kale, salarka cagaaran, barbarooniga oo kale, misiraha, shiisiidka, dhammaan iyo waxyaabahan sinjibiilka oo kale aad ayuu ugu fiican yahay PCOS-ka. Waxyaabaha nafaqada laga helo jirkaaga hadduu nafaqo lahayn, cudurro badan ayaa kugu soo hergalayo, cudurro badan ayaa luqluqyadaada galayo. Waa fideoga xiga iyo sidaas iyo nabadgelyo.